waxaa idin leeyahay ku soo dhawaada mar labaad sanad guurada labaad ee isbitaalka Tamaam caawa waa habeen gaar ah xambaarsan farxad sharaf mahadnaq waa habeen aan dib u milicsayno safarkii aan soo marnay guulihii aan gaarnay iyo kalsoonidii bulshada nagu garab istaagtay muddadii 2 sanaad ahayd ee isbitaalka Tamaam uu furnaa 2 sano Tamaam ma ahayn oo kaliya isbitaal wuxuu noqday goob ay daryeel ka helaan dhammaan bulshada kala duwan ee ku nool caasimadda iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliya halkaas oo ay ka helayeen daryeel qoysasna ku heleen rajo caruurna ay ku heleen bilow nololeed oo badbaado leh guulaha aan gaarnay ma ahayn kuwa si fudud ku yimid waxay ku imaadeen dadaal joogto ah karti staff u diyaarsan 24 saac in u shaqeeyaan daryeelaane bukaanada u imaanayo xilli walba habeen ha ahaato maalin ha ahaato xilliyo fasax aan jirin 24 saac u taagnaa inay daryeelaan bulshada Soomaaliyeed ee u baahan adeeg caafimaad caawa anagu u dabaaldegayno sanad guuradii labaad waxaan dib u xaqiijinaynaa ballanqaadkii ahaa in isbitaalka Tamaam inuu ahaado hoyga daryeelka naxariista qof kasta oo ku nool Soomaaliya uu awoodo hadduu yimaadaan uu ka heli karo daryeelkii caafimaad ee uu ka soo doontay isbitaalka Tamaam waxa caaw farxad weyn u ah isbitaalka Tamaam in bulsho intaan la eg ay la dabaaldegayso 2 sanad guuradii isbitaalka Tamaam la furay 5 May 2024 xilligaasoo dhaqaatiir iyo dad isku yimid ay halkaas isku dayayeen in ay ka asaasaan isbitaal muggaan leh dabcan isbitaalku intaan oo kaliya kuma ekaan doono wuxuu noqon doonaa isbitaal hormuud u ah adeegyada caafimaad ee lagu bixinayo dalka Soomaaliya waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa bulshada nagu aamintay caafimaadkooda waxa halkaan inaan isugu nimaano caawa keenay in bulsho badan ay nagu aamintay caafimaadkooda doorteen isbitaalka Tamaam daryeelka ay ka helayaan bulshadaas haddaysan ahayn caawa intaan oo bulsho isugu imaadeen dabaaldegan sanad guurada labaad waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa bukaanada isbitaalka Tamaam yimid kuwada jooga kuwada maqan kuwada dabcan ka daawan doono shaashadaha waxaan oo qiimo ah sharaf ah waxa inoo yeelo waayaga waxaan mar walba si gaar ugu mahadcelinaa bukaanadeena ku xiran isbitaalka Tamaam waa dadka naga dhigay waxa uu yahay isbitaalka Tamaam amaantiisa waxa bulshada gaarsiinaya waayaga waxa isbitaalku uu ku yahay isbitaalna waa bukaanada soo ma hilmaamin doono mar walba inaan halkaan aan ugu mahadcelino dadka ku aaminay caafimaadkooda isbitaalka Tamaam iyo dhaqaatiirta halkaan waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa staffka dhammaan isbitaalka Tamaam ka shaqeeya kuwaasoo mar walba heegan u ah inay bulshadooda u damqadaan daryeelaan una naxariistaan ma aha leeyahay isbitaalka Tamaam isbitaalku uu yahay ama ma ahayn mid lagu faano haddaysan staffkaas aysan ahayn kuwa u dadaalaya u hagar baxaya bulshadooda iyo sumcadda isbitaalka inay kormar walba u qaadaan bahwadaagteena dabcan ma hilmaami doono halkaan laftirkooda inaan ugu mahadceliyo bahwadaagta isbitaalka Tamaam iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay kobaca isbitaalka in uu heerkan soo gaaro kaliya ma ahayn wax shakhsi u sameyn kari bahwadaag baa jirtay iyo dad ka qayb qaatay kobaca isbitaalka Tamaam sidoo kale halkaan ayaan ayagana si gaar ugu mahadcelinaynaa ugu dambeyntii joogitaankiina caawa halkaan sharaf ay noo tahay farxad ay noo tahay kalsooni iyo dhiirigelin ayaan ka helaynaa joogitaankiina mar kale waxaan u mahadcelinayaa bulshada siyaasiyiinta madaxda dadka nagala soo qayb galay xafladan caawa iyo farxadda inay nala wadaagaan ku soo dhawaada mar kale waxa sharaf weyn inoo ah inaan idin la wadaagno munaasabadda sanad guurada labaad ee isbitaalka Tamaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah